السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى الصوماليات ميل الوجوغان وحان ليناهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هالكان إذن كوغسو قدبينينا قصة عجيبة وكاد عدي دالك بنغالاديش وحاد عدي نين دروال أها وقاديدك لس وذجري وأها نين سفري ومر البو إسوغن حقوشا مغالوينك بنغالاديش أما إنديا إي بنغالاديش باكستان إي بنغالاديش ayaa wuxuu bartay ama ay saaxiib noqdeen gabar degan tuulooyinka uu ku safri jiray kamid ah runtii ninkaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad u shaqaansi badan ama u haasaabo badan mar waliba meel walba uu tago wuxuu sameyn jiray qof uu xiriir la sameyn jiray ama uu guursan jiray marka waxaa dhacday gabar uu ka helay uu shukaansaday uu guursaday runtii nin safar badan ayuu ahaa runtii safarkiisa ayuu iska sii watay gabadhana uu guursaday marka waxaa dhacday gabadhii uu guursaday ugu dambeyntii wuxuu soo mari jiray safarka markuu ka imaado ama uu socdo ayuu soo mari jiray habeenkii ayuu seexan jiray subaxdina safarkiisa ayuu sii wadan jiray runtii gabadhaas markuu guursanayay wuxuu ahaa nin 18 jir ah gabadhii markii way isfahmi waayeen kala tageen ninkan wuxuu iska watay safaradiisii ayuu iska watay marka waxaa dhacday safaradiisa asigoo iska wata ayaa wuxuu sameeyay safaradiisa asigoo iska wata ayuu dhankan ay gabadha degneed ayuu safarkii ka wareejiyay oo dhinac kale ayaa loo bedelay Bangladesh ayuu ka qaadi jiray culeyskii ama alaabihii wadamo kale ee India iyo meelahan u dhow ayuu geyn jiray in badan ayuu gabadhii tuuladii uu ku guursaday oo ay ku kala tageen in badan ayuu mooganaa gabadhii iyadoo markaas leh uur yar uma sheegin waayo xanaaq ayaa ka tambatay iyo buuqi iyo barbaramka ay ku kala tageen sidan waxaan u soo qaadanayaa ragga aad iyo aad u guurka badan iyo gabdhaha xaalad walba ku soo kororta ninka caruurta leh inaad wax ka qarisid maahan si kasta u xanaaqsanaaw si kasta isugu dhacsanaada waayo xaalad walba carruurtaada ay dhibaato u keeni karaan hadad ka qarisid marka waxaa dhacday ninkii safaradiisa ayuu iska watay dhowr iyo 10 sano ilaa iyo 20 sano ayuu dhankaas mooganaa oo gabadha uu ku qabi jiray ayuu mooganaa marka kale safar ayaa dhankaas u soo baxay oo dhankii ayuu soo aaday gabadhii ayuu raadiyay waxaa loo sheegay gabadh inay dhimatay oo nin kale uu qabay ninka uu qabayna uu joogo carruur kalena ay u dhashay farabadan carruurna ay u dhashay farabadan balse ninka qabay magaciisa ma uusan sii weydin gabadha mar hadii waa dhimata la dhahay bas arintii weydintii iyo wixii uu iska daayay oo wax uu sii wareystay malahan marka waxaa dhacday safarkiisa iska watay dhankii ay u soo wareegtay uu safarku awal banaagtan uu ku guursaday markii uu ahaa 18 jir marka waa dhowr iyo 30 jir balse waa nin macquul ah haasaawihii badnaa ama shukaansiga badnaa oo iska yareeyay laakiin guurkii marba meel ku guursaday wali wuu wadaa marka waxaa dhacday gabadhii ay kala tageen marka horeysa ninka ay guursanaysay oo u sheegtay inay xaamilo tahay uur yar leedahay ninkuu ku guursaday wuxuuna dhahay gabadhaada aniga ayaa magac siinaya ama ubadka calooshaada ku jira aniga ayaa magac siinaya way dhashay magacii oo ninka dib u guursaday ay gabadhii siisay gabadhin iskama warhayso balse laakiin markii ugu dambeysay ay geerida soo dhaweeyay ay u sheegtay in ninkan uusan dhalin laakiin magaciisa ay siisay ninka dhalin uu yahay nin darwal ah oo hebel la yiraahdo magaciisa saddexan umaysan sheegin laakiin waxay awood u yeelatay laba magac ay hore inay u sheegto gabadhan way u qaadan weysay waxay u qaadatay in hooyadeed been u sheegayso balse xaqiiqada jirta waxay tahay ninka hadeer ay aabadhaysan uusan dhalin uu dhalay ninka darwalka ah marka ugu dambeyn maalin maalmaha kamid ah aabihii dhalay ayaa iyadan waxay sameysay booskii hooyadeeda ay hayn jirtay ee maqaaxida laamiga ku taalay ama meesha gaariyaasha ay ku nastaan ay ka cunteen ku taalay ay booskii ay qabatay shaqadii hooyadeed hayn jirtay ay qabatay marka waxaa dhacday aabihii dhalay oo iyada dhalay in uu cuno ugu istaago maqaaxida uu soo dego uu ka cuntay maqaaxidii gabadhii uu la kaftamo aqoon uma lahan wuxuu rabaa in uu shukaansado wuxuu rabaa inuu xiriir la yeesho gabadha aad bay u qurux badan tahay sida hooyadeeda oo kale laakiin war ii way uma hay gabadhan asiga dhalay oo gabadhiisa tahay in kale marka waxaa dhacday gabadhii in uu la hadlo uu la kaftamo oo lambar ka qorto uu la sheekaysto waqti aad u far badan ay wada hadlaan ugu dambeyn waxa lagu balamay in la guursado gabadhii wayna ka ogolaatay aad iyo aad waxa la yaab u leh in gabar aabaheeda ka ogolaatay in uu guursado ciladaasna waxaa keentay isgaranwaa marba meel ku guurso carruurtaada ha ka warhayn ayaa keenaysa ciladaha noocaas oo kale ah marka waxaa dhacday gabadhii iyo aabaheedii inay wada sheekaystaan oo wada kaftamaan oo la wada sheekaysto oo wax walba la isaga sheekeeyo labada qof oo sheekaysanaya shukaansiga ka dhaxeeyo wax walba ay ku sheekaysan lahaayeen in laga sheekaysto
oo waqti badan la siiyo oo wax walba la isla wadaago oo sir walba la isku sheego. runtii gabadhii iyo ninkii odayga ahaa aad bay isku fahmeen. waxaa lagu ballamay safarka soo socda in lees mehersado oo lees guursado. runtii aabihii uu ku qancay gabadhii, wuxuuna iska dhaadhiciyey in uu helay qoftii ka dhimatay bedelkeeda oo xasuustiisa weli aysan meeshan ka baabi'in, uu naagta labaad uu ku guursan rabo halkan. laakiin waxaa aad iyo aad ula yaab leh in uu gabadhiisa dib u guursan rabo, asigana war aan ka haynin, iidan war aan ka haynin. marka gabadha waxay ahayd gabar muslimada, ninkana wuxuu ahaa nin muslim ah. runtii dadka markay muslimiin yihiin iswaraysi fara badan, wax walba ayaa la isweydiinaya, kadib ayaa la isku meherinayaa. marka waxaa dhacday gabadhii in maalintii la balansanaa ay diyaar garowday oo shaqada iska soo xirtay oo ninka ay sugayso safarkii uu kasoo socda, asigana uu u sheegay inuu wadada kusoo jiro, isdiyaar garaysay. ninkii awalba hooyadeeda ku meheriyey ayuu balansaday oo da' noqday markaan, laakiin wuu joogaa, wuu ballamiyey. wuxuu dhahay gabadh igu mehirinaysaa, fadlan iisii diyaar garow, isa sii diyaari. gabadha isla tuulada aad degan tahay ayay joogtaa, marka waxaan rabaa inaad igu mehirsid. ninka wuxuu dhahay waa okay, hadaadba mehersanaysid oo wanaag u socotid maxaan ku diidayaa. gabadhii iyo ninkii way ballameen. gabadhii markay la ballantay ninka odayga ahaa wuu imaaday, waa la soo dhaweeyey, waa la meheriyey. ugu dambeyn adiga waxaa lagu meheriyey gabadha aabihii soo koriyey ee hooyadeeda magaciisa ay siisay ayaa lagu meheriyey ninka. gabadha waxa lagu meheriyey aabaheedii dhalay ee rasmiga u dhalay. ciladaas waxaa keenay in gabadha iyo aabaheeda aan lisu seefgareen oo aan lisbarin, gabadha aan taariikhda aabaheeda aan loo dhammaystirin, oo gabadha aabaheeda aan waqti dheer lagu bixin in ay fahanto oo barato cid uu yahay ay barato. hooyadeeda waxay ugu sheekaysay aabaheeda inuu yahay nin darwal ah, magaciisa sida labada hore ay ugu sheegtay, midka saddexaad aysan ugu sheegin. iyadana kuma aysan fikirin, mana soo xusuusan sheekada hooyadeeda ee ahayd aabahaaga hebel hebel ayaa la dhahaa. darwal inuu yahayna way u sheegtay, laakiin gabadha waxaa ka tambatay dareenka jaceylka ay u qaaday ninkan. ninkana wuxuu ahaa nin dabeecad leh, soo dhaweyn leh, dumarkan aad ay u jecel yihiin. ninka kaftama ee ka khusliya ee la kaftama ee soo dhaweeya ee baqiilkaan ahayn aad bay u jecel yihiin. ninkan wuxuu isku darsaday dabeecad, soo dhaweyn, gacan furnaan iyo nin daacadnimo u muuqda. balse markaan wuxuu ku dhacay dabin aad iyo aad weyn uusan ka baxsan karin, waayo wuxuu guursaday gabadhiisii asiga uu dhalay. runtii waxaa ciladaasna ah darwaliinta ama shakhsiyaadda Soomaaliyeed ayaan ka hadlaya hadda qisadan u soo qaatay. waxay leeyihiin dabeecadda ninkaas oo kale ah, weliba kuwa darwaliinta ha u badnaadaan. waxay jecel yihiin in meel walba ay tagaan ay xaas ku lahaadaan, ama xaas u joog, ama saaxiib ha la ahaadaan, ama ha guursadaan. waxaad ogaanaysaa haddii aad adiga iska ilaalin weyso guurka faraha badan ee meel walba aad ku guursanaysid, cilada noocan oo kale ayaa kugu dhacaysa, iyo shilka noocan oo kale aad ku dhacaysaa. shil kugu dhaco waa shilka ugu xun, waa shilka ugu dhibaatada badan awlaadaada inaad dib u mehersato ama u mehersato. ugu dambeyntii ninkii iyo gabadhii way wada noolaadeen, waqti fara badan ayaa la wada noolaa. ugu dambeyn waxay u dhashay gabar. gabadhaadii oo gabar kuu dhashay adduunka sidee loo sheegi karaa? haddii ay khisidan ogaan lahaayeen maalinta meherka ay u fadhiyeen wax bay ahaan lahayd. hadday khisidan ogaan lahaayeen habeenka arooskooda ay marka u horeysay aqalgalayeen wax bay ahaan lahayd. hadday ogaan lahaayeen bil kadib wax bay ahaan lahayd. laakiin markay ay ogaan lahaayeen hadda xaalad inkastoo meel laga qabta aan lahayn, markay xaamilada ugu horeysa tahay hadday ogaan lahaayeen ubadkaas waxaa laga yaabaa in la soo haaqo, xaaladana ay noqoto xaalad ama qabad leh. balse laakiin gabadhii ayaa gabar dhashay, ayaa gabar ku curatay maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo la iswareysanayo oo la sheekaysanayo. ilaan qof walba taariikhda ayuu ka sheekaynayaa. mar haddii wax laisku dhalo, taariikhda waxaa la kala qarsadaa intii laisku cusub yahay. qof walba yuusan kaa xumaan, qof walba yuusan wax kaa noqonin, intaa laisdhahay iyo taariikhda la kala qarsadaa. laakiin mar haddii lais guursado oo ubad laisku dhalo, nin walba taariikhdiisa si kalsooni leh ayuu ugu sheekaynaya. habeenada ka mid ayaa taariikhdii dib loogu laabtay. aabihii iyo gabadhii ayaa iswareystay. waxaa la dhahay adiga ma aniga ay ugu horeeyeen, nin darwal ayaa tahay, naaga fara badan ee soo guursatay. waa runta ayuu dhahay, naaga fara badan ee soo guursaday. isla tuuladan hadeer adiga aan kaa guursaday, hadda ka hor waxaan ka guursaday naag kale oo sidaadoo kale u qurxan. gabadhii shaki ayaa ku dhashay, shaki aad u fara badan ayaa ku dhashay. waxay dhahday naagta aad guursatay magaceed? naagta aan guursaday waa heblaayo hebel hebel oo reerkaas ah ayaan guursaday, anigoo isku cusubnahay ayaan kala tagnay. sidaas darteeda markaan soo laabtayna waxaa lay sheegay inay nin kale guursatay oo weliba haddana ay dhimatay.
dhimatay aysan dunida ku nooleen gabadhii qaylada ay ku dhufatay waxaa muudaa bahalka ugu sunta badan ee ugu xanuunka badan inuu qaniinay ama uu goosto ama uu ku dhagay way qaylisay gabadhii way suuxday istaagay ka dhacday way suuxday isbitaal ayuu la carray waa la geeyay gabadhii juuq iyo wax male dhaqaaq male juuq male reer aamusnaan gabadhii way soo naaxday waa la wareystay maxaa kugu dhacay buu dhahay gacaliso asigoor way umahay gacaliso maxaa kugu dhacay waxay dhahday aad baan ugu xumahay dhacdadan inaan ku dhaco marna ma niyeysanin marna ma rajeynin wuxuu dhahay dhacdada ku dhacday maxay tahay adiga qofka aad tahay ma ogtahay anigana qofkaan ahay ma taqaana waa maya waa aniga waxaan ku aqaanaa inaad tahay xaaskayga war ani xaaskaaga ma ihi waxaan ahay gabadha waxa ay dhashay heblaayo waa ware arintii waxay noqotay arin la yaab leh aan afka soo mari karin ninkan qaracankii meesha uu ka soo qaaday ama xintii meesha uu ka soo qaaday uu soo carab uu soo baxay wuxuu imaaday wadankiisii uu gaariga ku wada ayuu imaaday gabadhii telefoon ayuu kala hadlay wuxuu dhahay gabadheedii qaladkan naga dhacay qalad la sheegi kara maaha waxaan ka rajaynayaa inaad iska ilaawid teeda kale cunugtaas yar ee qaladka ugu weyn ku dhalatay iyada qalad ma lahan qaladka aniga iskale fadlan gabadhaasna noloshada dhibaateen adin noloshada dhibaateen ee hore u soco waxaan ka rajaynayaa wixii anaga aadna soo dhaxmaray in aad ka soo qaadid in aad riyootay oo riyo ay kugu tahay oo adin soo jeeda aadan sameeynin waa inaad ka soo qaadaa almuhim sheekadan waxaan u soo qaadanay in gabadhaas iyo aabaheeda uu sabab u ahaa ragga naag walba iska arka iska guursanaya ee dhibaatada fara badan ka dhaxlanaya familka dhexdiisa waxaan ka rabaa adiga aan kula hadlayo in aad ubadkaaga ogaatid oo xaaladooda aad la socotid si aysan hadhowtii isku dhac noocan oo kale u imaan hadda gabadha waxay ku nooshay tuuladii waxaa guursaday nin kale waxay u dhashay dhowr caruur laakiin caruurtaas waxaa ka mid ah midkay u dhashay aabaheed dhacdadaasoo kale ka waran sidee kula muuqataa ciladaasoo kale ka wadan marka ragga naagaha badan waxaan u sheegayaa in ay iska ilaaliyaan naagaha faraha badan haddaysan caruurtooda meel ku ogaan karin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin leenahay caruurtu waa wax qiimo badan oo qaayo fara badan leh marka hala ogaado xaaladooda si aan xaaladooda loo dhiba